hidaha iyo dhaqanku waa astaamo badan yihiin oo waxaa Soomaalidu ay si qaasa dhaqan ahaan u leedahay fan aad u facweyn gaar ahaan ciyaaro, geeraaro, gabayo iyo heeso. burburkii wadanka kadib waxaa gacanta ku qabtay dad ayagoo isu xilqaamay si iskooda, kuwaasi oo meel kasta oo dunida ka tagaan laga dheehan karo astaamaha Soomaalida dhaqan ahaan u gaarka ah. Axmed Cabdirashiid Timageed iyo Cabdulaahi Mukhtaar Malka waxa ay ku nool yihiin magaalada Wajeer, waxaana sikadiisa ugula kulmay bartamaha magaalada. waxaad ku labisan tahay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, bal waxaad naga warbixisaa sababta kugu kaliftay inaad xirato dharka noocaas ah? Arintan waxaan u fikirayay in badan, waxaan ugu fikirayay dhalinyarada da'dayna ah sidii aan ugu hor imaadi lahaa dhaqanka ay ku dhaqanayaan oo ay ugu daydeen gaal. sidaa awgeed ayaan in badan u fikirayay sidii si daba marsan oo ayaga ay uga soo daydaan siday gaalka u daydeen camal. si daba marsan maadaama u fikiray waxa ii soo kormartay inaan sameeyo dhaqankii hidaha Soomaalida loo aqaan jiray. marka sidaa awgeed timaha baan deystay, war timaha jar sidoo la dhihi jiray, timaha lagu galaamaya gabdhaha ay dhihi jireen. markii dambe timaha markay ii weynaadeen aan shanleen jiray waan hagaajiyay. markii timaha ii soo hagaagay baan dharka cad soo gatay. dharka cad markaan soo gatay ilaa heer waxaan la kulmay in la dhaho ma fanaan baa tahay ama dadkan dhantay ku jirtaa. sidoo kale Malka, bal madaxa timahan aad deysatay iyo sababta u deysatay haddaad nala wadaagto. timaha waan iska jeclahay maxaa yeelay dadkeena hore timaha bay iska deysan jireen. maxaa la jiray aabahayga camal hadda timaha u deysan jiray, aan saas baan ku arki jiray. marka haddana inaan deysto aabahayna iskaga dayanay macnaha dan kale u deystayna malaha. waa tahay ninkan wuxuu ka dhawaajiyay saaxiibkan Axmed Cabdirashiid oo kale in marka uu samaystay timahan oo dharkan uu xirtay ay dad badan tusaale ahaan oo kale uu doonay inuu wax kaga bedelo. adigu ma kugu jirtaa timahan aad deysatay oo kale in aad isleedahay aad dhalinyarada ka bedeshid dhaqanka ay timaha kale ama goonyaha xiraan ama ay madaxbooda xiraan? wallaahi ku dayshada hadii lagu daydo wax fiican waay, maxaa yeelay waxaas adi bilowday oo lagu soo raacay wax waa iska wanaagsan tahay. maxaa yeelay maxaa la jiray qof hadas kugu daydo waa qof oo ashiro u tahay mogtahay. marka haddii lagu daydana waa iska jeclahay, balse ana qof aan qasbayo igu soo dayaan leeyahay malaha. waxaan u laabanaynaa Axmed Cabdirashiid. Axmedow, waxaad nooga warbixisaa dharkan aad xiran tahay iyo hidaha iyo dhaqanka aad muujisay timihii iyo wixii, maxaa kale oo ku dheer oo samaysaa? waxaa kaloo sameeyaa dharka markaan xirto iyo markaan dharka xirneen dadka laba kalimaan kala kulmaa. markaan dharka xirto hataa gaari baan wadaa, gaari tugtugaan ku shaqeeyaa, waxaan kala kulmaa intaan kastam ku helo. haddii dhar xirneenno ilaa ay gabdhaha iga xishoodaan oo madaxayda biska cararaan ayaa muuqanaysa. marka sidaa awgeed haddii dharka xirto dhaqankiina iga muuqdo waxaa lileeyahay axmed Soomaali ama axmed Soomaali rasmi baa ileeyahay. hataa dadka madowdoona jinsiyadda ahayn. gaari ayaad ku shaqaysanaysaa, dadku sidee kuula dhaqmaan oo kale markaad gaariga wado? markaan gaariga wado dadka si firfircoon iyo farxad leh oo maxaa la jiray war dhaqankaanaas muujini, waa dhaqankan lahaan jirnay, dhaqan wiilish geesaa xiran waa dhaantaa bay ugu dhahan dadka waayeelada. dhallinyaradana way ku farxaan oo neewsimaan maxaa higsoos ka leedahay ama seed u daysata bay dhahan. adiga higsigaada muxuu yahay? tan dhallinyarada ugu duwo dhaqankan ay ku dhaqanayaan, dhafooraha xiranayaan. marka dhallinyarada hadday ugu daydaan waan jeclaan lahaa, aad baan weli ugu hambalyeyn lahaa inay uga soo daydaan. waxaa ka mid ah in gabdhaha markii la guurinayo soor iyo waxba la samayn jiray. hataa waxaan ku fikirahayaa inaan haddii guur maago inaan dhaqankaad sameeyo oo dhaqankii wixii hooyaday lagu aroosay inaan ku aroos galabaan aan haminayaa. dhalinyarada ku dhiirigelinaysaa kuwa muqaadaraadka arrimaha kale ee dhaqanxumada ku mashquulsan oo kale, aduu maxaad uga dhigan tahay? wallaahi muqaadaraadka iyo maxaa la dhihi jiray western culture dadkan oo cadiinka lagu dayana horta macnaha waaba Soomaaliyan nahay inaan iska dayno waay oo dhaqankeen aan soo ceshano.
maxaa yeelay timaha waa la deysani jiray, dadkeena hore timahay deysani jireen, laakiin geesaa kama jiri jirin. adigana isla su-aashaasi caqabadaha aad kala kulanto timahan iyo dharkan iyo maxaa ka mid ah? waxaan kala kulmo waxaa ka mid ah hadda wax lagu daacdeeyo ama lagu aflagaadeey ma jiraan. dadka odayaalka waxay dhahaan hidaha dhaqankaad samayn haysaa, hataa ilaa waajibaan gaarigaada raacno. dadka culimmadan waxay dhahaan geesa xiirka adigaa dhaantida saan ku soco, sidaas ay dhahaan. tugtug ayaad ku xamaalataa, waxaa tahay nin tugtugla-ah. sideed ku keentay inaad gaarina ku shaqayso islamarkaana aad habkan u muuqato? dumarka oo kale iyo dadkana markii ay adoo gaariga ku dhex jiro timaha noocan iyo dharkan qaba, sidee markaasi ugu muuqataa oo sidee kuu qaabilaan? waxay ii qaabilaan dumarka camal, gabdhaha hablaha camal magaalada markay socdaan oon gaariga ku dhex jiro waa i fiiriyaan, waa iskay tusaan wiilka ma kuu dhaantada. ayagoo i fiirina baan gacanta u haadiya, waan ku dhahaa ma socotaan. qofkeen socon hataa ugu soo laama ugu wareysan. kastam baan ku helaa zaaid, aad baan kastam uga helaa. laakiin waxa aan iska keenama waa wax ayaga dad iska soo kay raacayo. haddaan tugsuga dhex taaganahay hataa inay igu soo laamaan dadka gaari soo fuulayaan. dad badan oo sidaadoo kale wada ama laga yaaba in ayagana fikradaasi qaataan oo timaha deystaan dharkana ay xirtaan si ay u helaan kastam. dhalinyaradu ay wareysteen oo ku geesa xiran oo tugtugta wadaan, waxay ugu dhahaan yow dhaqanka maxad ka hesha aan kugu dayanne. dhaqankan aqoonis baan u leeyahay aan ku dhahay, laakiin dhafoor xiir aqoonis uma leh. waan garanayaa waxay ku sugan yihiin, laakiin meelaad ka imaada ma ii sheegi kartaan ku dhahaa. ade ninba su-aale ma garanayo iisho u dhahay. dhaqankan dhafoor xiir waxaa laakiin aan ku dhahay nin gaaloo dhinac bidaar ka gashay yaa dhinaca kale dhinaca u ekeysiiyey. hagaag khaaray, intaasi waxay nooga eeg barnaamijkeena aynu ku eegeynay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, isla markaana aynu ku wareysanay Cabdulaahi Mukhtaar iyo waliba Axmed Cabdirashiid oo ah dhalinyaro ayagu u soo labisteen hidaha iyo dhaqanka isla markaana timaha deysteen. khaaray, barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Xasan Mukhtaar Wayeelka. intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.